كبروا كبروا كنا صار بولشة TV habeennimadii xalay cabaar saddexdii iyo barkii habeenimo ayaa mar quraata lagu baraarugay gariir weyn oo danabka roobku rido isla markaana hurdada dadka mar quraata ay ka wada kaceen intooda badan isagoo qof kasta oo u dhawaa agagaarka masaajidka Umul Kaltuun ee xaafadda New Gabiley gaar ahaan taangiga sare danabkan ayaa wuxuu qabsaday minaaradda masaajidka Umul Kaltuun halkaas oo uu jaray qaybta ugu sareysay minaaradda burburkii minaaradda ayaa wuxuu hoos u gooyay qayb ka mid ah jiingadii saarnay iyadoo argagax badan ku dhacay dadkii hurday masaajidka iyo guryaha ku hareeraysan ayaan wax ku noqday aanay jirin TV-ga caalamiga ah ee Bulsha TV oo booqasho goobtan ku tagay ayaa wax ka weydiiyay qaar ka mid ah dadkii agagaarka masaajidka deganaa iyo waliba dadkii waqtigaas u soo baxay salaada subax iyagoo ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen السلام دمان اسمه مرود كله هلا والله وحيد عاي وحلا ياب لي هاين إلى إن كستون قرب مريء لكن وحوين بهاين بس يحن كريم ساعات تاخذ قياس لها 6 دقائق حلالك ما خد عاي واحد يا الله يا ابني بوها حلال مالنا 6 دقائق بركي باي هاي marka aanu hurti marka toban ku dhacay baan soo baraarugay marka dhan leeyahay ka dhacay waan garin waayay shucuurtiisa gibiyay isbedeshay intan ma turtid marka saakana waxa la yiri marka soo toosnay salaad subax gaadhay masaajidku ku dhacay maqlay waxaan maqlay marka anigu yoos gow si taata ay yoos iyagu salaadii subax ayaan marka ku kala masaajidka galbaan la masaajidku anigu taagan yoos gow ayaan maqlay يا وعبد السلام محمد بدي بولشة TV قبلي